golo walba inuu goonigiisa u shaqeeyo waxa loo sameeyay laba golo waxa loo sameeyay waa golo kasta inuu goonigiisa u shaqeeyo oo aan isku fikir noqonin oo aan isaxna marka labada golo kaliya waa markii madaxweynaha la dooranayo iyo markii dastuurka wax laga bedelayo bay kulmi karaan oo ay muxuu ahay wada shaqeyn yeelan karaan inta kale laba hay'adood waay inay isaxaan ayaa loogu talagalay waxa intaas ka dheer oo maanta halkan ka dhacay waxa la sheegay muxuu ahay xeer hoosaad in wax laga bedelayo xeer hoosaad baarlamaanka aqalka sarena xeer hoosaad uu leeyahay kan muxuu ahay meeshii la yiraahdo golaha shacabkana xeer hoosaad uu leeyahay isku xeer hoosaad manni waxa kaliya la rabaa waxa way xeer hoosaadka inuu waafaqo dastuurka qaladka marka guddoonkiyo aan experience lahayn iyo dad danleey ah oo doonaya inay dantooda ka fushidaan ayaa meeshii soo galay for example waxay sheegeen doorashada in waqtiga jadwalka noocaas lagu qabanayo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa barkee waxa la ansixinayo waxa way maalin hebel waxaan la qabto ma la qaban karaa ma lama qaban karo in la yiraahdo baarlamaanka qofna kaligii dictate mu samayn karo wax uu soo qori karo waxaana hubaala oo dhammaan inta taqaana baarlamaan muxuu ahay ay uga ayiidaysaa hal qof inta uu diidan yahay baarlamaanka doorashada kama dhici karto waxna kama dhici karaan sidaas daraadeed guddoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan fariintayda halkan ugu diro yaay baarlamaanka kala qaybinin yaay baarlamaanka laba group kala dhigin ayagana yaay noqonin guddoon hal dhinac ka raran yaay noqon tan ugu muhiimsan waa taa guddoonka baarlamaanka waa xubin sharafeeda loo siiyey guddoon la doortay ma aha inay lagu danaysto oo dad danleey ah ay muxuu ahay dantooda ka fushidaan ma aha wax la aqbali karo ma aha wax haddii da'da lagu geeyay haddii xogaa maskaxda ay cuslaatay waa goonigeeda taqaatiir baan u dilaynaa dad daa'iraan noo hogaaminay laakiin waxa aan leeyahay waxay tahay ilaa hadda heerkaas nagama gaarin waxa aan rabnaa waxa weeye